shaqaalaha shirkadda Facebook ayaa ka cadhooday qoraal uu madaxweynaha waddanka Mareykanka uu soo dhigay bogga gaarka ah ee uu ku leeyahay Facebook. Mr. Trump ayaa boggiisa Facebook ku soo qoray qoraal la mid ah kii ay shirkadda Twitter ay hore uga diiday ee ku saabsanaa mudaharaadyada ka socda magaalada Minneapolis ee lagaga soo horjeedo dilkii loo geystay ninkii madowga ah George Floyd. shirkadda Twitter ayaa madaxweynaha u dirtay digniin ku aadan qoraalada uu bartiisa Twitter-ka uu soo dhigo, balse Facebook waxay sheegtay inaanay ku xadgudbaynin shuruucda u taala shirkadda Facebook. shaqaalaha Facebook waxay sheegayaan inay ceeb dareemayaan kadib qoraalada uu madaxweynaha waddanka Mareykanku uu ku soo qoray bogga gaarka ah ee uu ku leeyahay Facebook. hadalladaasi oo ay dad badan dhibsadeen waxa ka mid ahaa haddii ay biliqadu bilaabanto in toogashaduna ay bilaabmayso isla markaana madaxweynuhu uga dan lahaa dadka ka mudaharaadaya dilka loo geystay ninkii madooba ee George Floyd. balse qoraalkii uu Trump boggiisa Facebook soo dhigay ayaan la taaban kadib markii mulkiilaha Facebook Mark Zuckerberg uu sheegay in shuruucda shirkadda uu yaallay inuu ixtiraamayo. shaqaalaha Facebook ayaa maanta xarunta dhexe ee shirkadda ka sameynayay dhaqdhaqaaq ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan fariinta Trump ee bogga Facebook laga saari waayay. laakiin mulkiilaha shirkadda Mark Zuckerberg ayaa isagu qabaa in haddii mas'uuliyiintu ay qoraal khaldan ku qoraan bogga gaarka ah ay ku leeyihiin shirkadda Facebook ay tahay inay ka falceliyaan shacabka isla markaana la eegayo qaabka ay shacabku uga falceliyaan hadalkaasi khaldan ee uu mas'uulku qoray. sidoo kalena waxa uu sheegay in isaga laftiisu aanu la dhacsanayn qoraalka uu qoray madaxweyne Donald Trump. Xamse Geelle oo